روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريم. سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. waxay ku soo degtay sida xadiidka Jundab ee Bukhari Muslim ay soo saareen uu sheegayo nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jiraday intuu Maka joogay ayuu jiraday nabigu sallallahu alayhi wa sallam marka habeen iyo laba habeen buusan istaagin marka haweenayba u timid gaal ah haweenay gaal ah ayaa u timid markaas waxay ku tiri ya Muhammad ma ara shaytaanaka محمد الشيطان كاغي وحكو كيني جيري ما أركو يعني إنو كاتغ وكو نعيوي مركاسا إلهي آيات أسود جيي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى مركا حلقي يا مرحلة دي ما كان نبي صلى الله عليه وسلم أي سود جيسا أرنتاس أنا لقيت جوابي يايو نبي إنو سن ربيجي نعن إنو سن كتجين إنو سن وعلانين بل إنه يرانتيسين إلهي تبارك وتعالى أبال بدن أوقلي حتى وحي كدن بينا أبالكي وحكوين إنه إلهي السينة تبارك وتعالى يا لقاه الله وحربي تبارك وتعالى مركب الضحى برق كيبان كودارتي أما مالين تordن بده طيب والليل هبين كيبان كودارتي إذا قرتي سجاء وحسله أو أما ددكي ay xasilaan oo wixii ku hoostiisa ku jira wada xasilaan ama asagu ba xasilo mugdigiisa uu ku xasilo intaasan ku dhaartay ma wadacaka kaamuusan tagin oo kuma sagootiin rabbuka rabbiga nabi maxamedow wama qala man aroonin kuma aroonin walal aakhiratu aakhira ayana khayrun khayr badan laka adiga ku khayr badan min al ula tan hore midda dambe ayaa kaaga khayr badan midan hore wala sawfa yu'tika wa kusin doona rabbuka rabbiga waxbuu kusin doona lama sheegin waxa la siinay fatarda markaas raali noqon doonta waad qanci doonta Allah tabaaraka wa ta'ala san hore u soo baranay wuxuu ku dhaartay laba makhluuq oo makhluuqaadkiisa kamid ah xajabta leh ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa ku tusaya waa maalinta oo laga cabiray barqinkii iyo habeenkii markuu xasilo oo mugdigiisa wixii khalqi ahaana uu xasiliyo isaguna uu xasilo labadaas ilaahay ku dhaartay tabaaraka wa tacaala muqsamu calayhi wax weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam sheekadii ay gaaladu ku sheekaysteen ee naagtaasi hawartaasi ka turjuntay ee ahaa shaydaankaagi waa ku nacay ayaa laga jawaab waxa la leeyahay rabbiga kuma nicin kaama tagin كومنا عرون النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل إسكاب الضعف إنه كنا تندم بأيابا كاغا في عنان دونتا أو أخراء تنهري وحن ودونك كوسي وحكا في عن باكودن بيه وكسين دونا رالنا ونغن دون تابع ليلي ربي قابا كسين دونا محو كسين دونا يعني وحسين دونا أدونك إنتو تشوغانا النصري يقول iyo gaalada uu ka adkaado iyo qalabo iyo taageer uu siinaya rabbi tabaaraka wa tacaala markaas uu raali noqonaya tawxiidkii oo faafay diintii oo guuleysatay ummadiisii oo xoogeysatay yani waxa way waa ku farxaya aakharana uu ku siinayaayo waxaan cid kale la siinin ba aakhara la siin doona waay oo nabigeenu sallallahu alayhi wasallam darajada ugu sareysa aakharada isaga iska leh نعمده ugu badan iyo barwaaqada ugu badan isaga iska leh nabiga ilaahay baa siinaya tabaaraka wa tacaala athar baa jira Abdullah ibn Abbas laga wariyo uu leeyahay rasuulka waxa loo soo bandhigay wax kasto ummadiisa loo furi doono gadaashi kanzan kayd yani ummadaha kale kaydadka ay ka furan doonto iyo dhulalka ay qabsan doonto iyo khayraadka ilaahay u furi doono ayaa qayb nabiga loogu soo bandhigay sallallahu alayhi wasallam فسر بذلك مركز النبي آد ugu farxay wala farax gali aad ugu farxay rasuulka sallallahu alayhi wasallam markaasuu ilaahay aadan soo dajiyay jannadana ilaahay wuxuu ku siiyay buuri yani 1 milyan oo qasri yani guri yani guri kastana waxa ku jira wax ku haboon oo xaasas
iyo khadam iyo adeegayaal ah yani nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ilaahay siin doono wax la qiyaasaya ma ibn Jarir iyo ibn Abi Hatim ya soo saaray atharkaas ibn Kathirna wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix isagoo kalena ra'yi laga ma yiraahdo yani wuxuu tilmaamayaa inuu yahay marfuuc macnan inuu noqon karay almuhim hadii uu sugnaaday haduusan sugnaaninba nabiga wuxuu ku qancaa ilaahay siinaya tabaaraka wa tacaala والضحى بان ku dhaartay maalintii iyo waleyli habeenkii ida goortii sajaa u xasilo ee ma wadacaka kaamuusan tagin oo kuma sagootiin rabbuka rabbiga nabi maxamed oo ma qala mana ku cadoonin wala al-aakhiratu mid damba khayrun khayr badan laka adiga ku khayr badan min al-ula midan hore adduunyada waxa xagga ku dambeeya ka fiican waxa adduunka yaalo wala sawfa yu'tika wa kusin doona rabbiga adduun guul adduun iyo nicmo aakhiraba uu ku siin doona rabbuka rabbiga fatarda markaasaad raali noqonaysaa oo ku qanci doontaa markaasaa waxa la yiri yani ilaahay wuxuu u tiriyay marka nicmooyinkii uu u galay yaraantiisii adduunka intuu joogay yaraantiisii laga soo bilaabo nicmooyinkii loo galay oo macnuhu tahay allaha sida kuugu nimceeyay buu kaaga tagayaa horaanna waa ku soo nicmeeyay gadaalna waa ku nicmeyn doona alam yajidka miyuusan ku helin alle yatiiman adoo agoon ah oo faawaasoo kuma dumin wawajadaka soomuusan ku helin daallan adoo lunsan oo fahadaasoo kuma hanuuninin wawajadaka soomuusan ku helin caa'ilan adoo caydan waxba haysanin oo faaqnaasoo kuma deeqin فأما اليتيم أقون كمرك فلا تقهر الرماسي وحي أهين نعموينك يقلده ألا أقل النبي محمد صلوات ربي والسلام عليه يعني أقون بوأها أقون نمدي سبا إلهي وحو دياري صببتي أقون نمدى أوكا كبان لها ومثلا هو يدي وحي دمتي أصوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحجرأة ميسا سيدي تشربوها على وضع الرواية دوال الشيغة aabihiina wuxuu dhintay ama isagoo yar ama asagoo uurka ku jira 6 bilood ah ayuu aabihii dhintay hooyadiina daadaasay ku dhimatay marka wuxuu noqday agoon labada dhinacba ah agoon rajay abuu noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam agoonnimada marka ilaahay baa dumay lama dayacin mana dayacmin adeerkii Abu Talib ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala markiiba u diyaariyay oo koriyay oo gacanta ku qabtay oo hoosta soo gashaday marka ilaahay baa u diyaariyay adoo agoona Soomaaliya ku helin oo Soomaaliya ku dumin abaal way mid labaad markaad weynaatay oo muxuu ahaay aadan garanaynin qaabkaad ilaahay u caabudi lahayd iyo sharaa'icdii ayna ku cadayna yani Soomaaliya ku soo dajinin waxyigan iyo quraankan oo Soomaaliya ku hanuunin daallantu wax weeye kutubta qaar baa waxay ku fasiraan yaraantii uu dariiqa ka lumayo waa la soo helay macnahaasi macna xoog badan ma sida saxda waxa weeye dariiqa cibaadada ama cilmiga sharaa'icda ayaa ka maqnaa sida ilaahay aayad kale ku sheegay ma kunta tadri mal kitaabu wala al iimaan kitaab wuxuu yahayna maadan ka warhaynin nabi maxamedow iimaan wuxuu yahayna maadan ka warhaynin baa nabiga lagu yiri sallallahu alayhi wasallam rabbigii ku yiri marka waxa weeye xilliga hore sax nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay shirkigii tolkii iyo quraysh ay ku jirtay ilaahay waa ka ilaaliyay dambiyada waaweyn waa laga ilaaliyay markuu godka ku cibaadeysan jirayna yaani muusan aqoonin cibaado far badan oo ku cibaadeysto laakiin waxoogaa uu nabi ismaaciil diintiisa ka dambeysay ayuu la khalwoon jiray laakiin tafaasiishan shariicada iyo waxyaalahan dib uga soo tagay quraanka iyo waxyigu la keenay muusan haynin taas marka laga wadaa wajadaka daallan fahada adoo lunsan buu ku helay kadibna alla waa ku hanuuniyay alla soo kuma helin adigoo caa'ilan waa faqiirka marka faqriga laba dhinac waa galaya xoolo muusan haysan nabiga sallallahu alayhi wasallam de agoonnimo ku korayba waa mid labaade yani wax way qalbigiisa waxyigan markuu ilaahay ku soo dajiyay waxa ilaahay galiiqina nafs dhankii xoolahana markuu weynaadayba nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay hanti yani wax way adeerkii iyo ganacsigiisii markii dambana xaaskiisii Khadiija oo dhaqaale leh buu guursaday markii dambana saxaabadiisii oo rumaysay baa hanti lahayd nabiga sallallahu alayhi wasallam markii dambe uu gaalada ka adkaadayna hanti badan buu ka furtay nabiga sallallahu alayhi wasallam marka faaqna dhankii adduunyo ahaana waa la deeqay qalbigiisana ilaahay deeqsinimo galiyay oo qiina nafsi ah labadu way soo galaysaa alam yajidka miyuusan ku helin alla yatiiman adoo agoon oo faawa soo muusan ku dumin
wawajadaka soomuusan ku helin daalan adoo lunsanoo fahadaa ma ku hanuuninin wawajadaka soomuusan ku helin caa'ilan adoo caydha fa aqnaa soomuusan ku deeqin alla tabaaraka watacaala maalna waa kugu deeqay naftaada iyo qalbigaagana ilaahay qaninimuu geliyey ayib marka allaha intaaba kuu soo galay seebuu kuu nacayaa kaaga tegayaa waay fa amal yatiimi agoonka mar hadduu nicmooyinkaa laguu galay adigana waxaa la rabaa dadka inaad abaal u samayso dadka inaad ixsaan u samayso fa amal yatiima agoonka marka agoon baad soo ahaan jirtay fa amal yatiima agoonka falaa taqhar ha qasbin ha xoogin xoog ha u sheeganin wa amma saa'ila ka wax weydiisanayana falaa tanhar ha guulguulin ha canaananin wa amma binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisana faxadid ka sheekee